Boocame oo ah degmo ka tirsan gobolka Sool waxaa dhawaan tagay suxufiyiin ka tirsan warbaahinta Daljir waa degmo taariikh dheer leh in halkan la dego waxa sahlay ceelka Boocame sida ay waxgaradka noo sheegeen. lixdankii markii la aasaasay waxa lagu degay odayaashii qabiilka oo reer baadiye ah baa tashaday ama laba saddex nin oo askar ka soo baxay baa u ahaa madax u ahaa odayaasha Elbirat la yiraahdo halkan ka cad ayaa tala qabiilkii isugu yimi waxa la isugu yimi inay degaan war xageen degnaa baa la yiri sahan baa la diray saanka la diray wuxuu keenay Boocame ceelka Boocame waa laas yar oo aan biyo lahayn laakiin dadka afkiisa iyo kacbaan xoolana iyo kacbaan jidkan la dhisayo waxa hormuud u ah dadka deegaanka Boocame ilaa iyo laamiga waa 17 kiiloomitir laakiin waxa dhaqaale loo hayaa 5 kiiloomitir oo jay ah gudiga wadada gacanta ku haya ayaa Daljir u waramay hadda waxay maraysaa isaad iniina ku arkaysaan aratuurkii baa socda laangooyaduna waxay gaarsantahay ilaa buurta 5 kiiloomitir waxay ku joogtaa muxuu ahaa yaabshe waxaan rajaynayaa inaan toddobaadkan gudihiisa muxuu ahaa ay qaybtii hore ay dhamaato wixii ka dambeeyana qaybta kale loo gudbo si dadkuna wuu abaabulan yahay oo gudiyadii iyo maxaan ku raahdaa dadweynihii intaba diyaar bay yihiin inay wixii xoog iyo tabaruc inay bixiyaan marka waxaan rajaynayaa inay dhaqso inoo soo gabagaboodo saas insha Allah billaah kariim marka gurigan waxa lagu yaqaanaa ama loogu abtiriyaa inuu yahay gurigii nabadda isla markaana haddana uu yahay meesha kaliya maxay isha gaar lagu fiirinayo xagga nabadgelyada iyo waxqabadka iyo wax soo saarka waxaanu leenahay dhalinyaro iyo waxgarad aad iyo aad qaali ah dhalinyaro samayso horumarka deegaankooda aad iyo aad maanta u firfircoon bulshada waxay fariin u direen madaxda Puntland oo laga dalbaday in ay ka qayb qaataan jidkan waxa lagu bilaabay waa 120,000 oo 5 kiiloomitir hore fayska hore oo jaya inta kalena waa fayska dambe daamirkuna waa fayska saddexaad waxa la rabaa hadaba dadka jaaliyada iyo dadka dalka deegaanka dhamaan marka waxa la rabaa qof kasta oo kilibkaas soo gaaro inuu meeshiisa iska xilqaamo fariintan diray waxa weeye marka madaxweyne dhabadu waa 18 kiiloomitir 18 kiiloomitirna xafiiskaaga kaliya dhisi kara marka jawaabtan fariintan dirana waxa weeye dhabada madaxweynaha ka qayb qaadatid shacweynaha Puntland guud ahaan iyo gaar ahaanna inay ka qayb qaataan waa wado 18 kiiloomitir shantii jayga haba la wadaa degmada qorshaha dhow ay kala yeedaan waxa weeye 5 kiiloomitir oo hay'adda iyo degmadu ay ka qayb qaataan hadii la dhameeyo in qaybta dhimana lagu xijiyo inta hawsha wado kamaniga hadda dhisayay Boocame oo ah magaalo ku tiirsan beeraha baadiyaha xoolaha ayaa waxay muddooyinkan horumar ka sameeyay dhanka ganacsiga magaalada Boocame degmada Boocame horumar aad u ballaaran baa ka socda bariyahan sanadada ugu dambeeyay waxa weeye magaaladan dhaqaaleeda koowaad ay ku tiirsan tahay waa beeraha aad u far badan bay leedahay waxa weeye ganacsigeeduna aad u soo fiicnaanaya 5 sano ugu dambeysay waxa weeye baqaarada waaweyn iyo carwooyinka waaweyn iyo aad bay ugu soo badanayaan iyo dadka ka imaanaya haday doonaan qurbaha oo ganacsiyada ka furanaya magaaladan waa magaalo aad iyo aad mustaqbal iyo waqti lagu xisaabtamo leh horumar ballaaran oo ka muuqdo Xasan Heykal warbaahinta Daljir Garowe.